barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadeed qodobo waaweyn ayaa inoo soo socda daawasha qiimaha leh marxaladaha dunidana aad iyo aad bay usii darsan yihiin qaybtan aan ku bilaabay isla markaan ugu horeysay dowladda Ciraaq ayaa waxay ku dhawaaqday in iyaduna burisay isla markaana ay dalka ka mamnuucday wakaalada wararka afka dheer ee Reuters la yiraahdo kadib markay sheegtay inay faafisay warar been dowladda dalkaasi Ciraaq ayaa sheegtay in ay la xisaabtamayso warbaahin kasta iyo wariye kasta oo dalka dhibaato ku ah markan iyagoo sheegay in ay ujeedka ay arintaasi u sameeyeen ay tahay kadib markii ay muddadii ugu dambeysay oo dhan warar been abuur ah oo aan la garanayn been cid ka soo xigteen iyo cidda ay cilaaqaad kala leeyihiin wariyaasha ku sugan dalkaasi Ciraaq ee ka socda wakaalada wararka Reuters ay markaas faafinayeen ayagoo sheegay in kumanaan kun oo qof xanuun ku soo ritay balse dowladda ayaa sheegtay in 772 ruux kaliya xanuun ku soo ritay halka 54 kaliya ay dhinteen laakiin wakaalada wararka Reuters ayaa yaamihii u dambeysay oo soo tabinisay in dowladdu ay ka been sheegayso dadka xanuunka u soo ritay in gaarayaan kumanaan kun laakiin dowladda Ciraaq ayaa sheegtay inaysan jirin sabab ay muwaadiniinteeda xanuunka u soo ritay ay u qariso sidareedna wakaaladu ay tahay mid duminaysa cilaaqaadka ka dhaxeeya shacabka iyo dowladda sida daraadeedna waxa laga mamnuucay in ay dalkaasi war ka diraan waxa sidoo kale lagu xukumay $20,000 oo lacag ganaax ah ayadoo saacado kooban loo qabtay lana sheegay in laga buriyay dalkaasi madaxweynaha dalka Philippines-na waxa uu asaguna amar ku bixiyay in toogasho lagu dilo qof kasta oo u hogaansami diida arinta dhinaca xayiraada dadka iyo bandowga dalkaasi saaran Rodrigo Duterte oo ah madaxweynaha kan oo dalkaasi Philippines ka taliya ayaa waxa uu toos ula hadlay warbaahinta dalkiisa isagoo hadal toos ka jeedinayay TV-ga qaranka ee dalkiisa ayuu Duterte waxa uu sheegay inay muhiim tahay in ruux kasta uu u hogaansamo wuxuu ku tilmaamay awaamiirta ay soo rogayaan dowladdu oo ay ku jirto ayuu laamaha amniga ee horka militariga iyo booliiska asagoo sheegay in ay taasi keeni karto gacan ka hadal ay booliisku gacan bira uga hortagaan ayuu yiri dadka haatan ku dhawaad 100 qof ayaa dalkaasi ku dhintay halka ku dhawaad 2500 oo xanuunku u soo ritay isagoo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu yiri waad ogtihiin ayuu yiri in ay xaaladda waddankeenu ay sii cakarmayso waa maxay sababta aad u raaci laadihiin ayuu yiri awaamirta idinkan toos ila hadlayaa yiri si wacan u dhageysta ayuu yiri raaca awaamirta oo dawladda u hogaansama yiri waxaan u dirayaa buu halkanna hadal kale aan uga dirayaa buu yiri booliiska iyo militariga waxaan idin leeyahay hadii dadku ay diidaan ama ay ka madax adeegaan awaamirta ama ay dala dagaalamaan oo ay gacan ka hadal soobiyaan waa maxay waxaad sameeynaysaa ma fahmaysan waxaad sameeynaysan buu toogta ayuu toogasho ku dila isla markaana qofka bartiisa isagoo taagan shan xabadood ku dhufta ayuu yiri wuxuu yiri waad fahmi kartaan waxaan ka wado waxaan leeyahay dadka arintaas diida waad leeanasan waxaanad u dhimanaysan sida ay heed inaad u dhimataan ayuu yiri waxaana idin duugi doona aniga ayuu yiri ana gacanteeda ku aasi doona marka la dilo ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi oo ah madaxweynaha kan aadna loogu eedeeyay in dagaalkii daroogada ee ka dhanka ahaa uu dalkiisa uu si weyn u maareeyay kadib markii uu birta ka aslay dad badan oo markaasi daroogadaasi iibinayay ayaa leeyahay haddana dadka markaasi xanuunka diidan in ay doomirsa raacaan ayuu leeyahay la xasuuq ayadoo sidoo kalena kala dhaca aynu naqaanay Soomaalidu kale kala dhaca aad bay u taqaanaa inay wax kala dhacdo macnaha kala dhaca Soomaalida kuma cusba markii horena xoolahay kala dhici jireen hadeertana guryaha iyo beeraha iyo dhulka iyo wax kasta waa la isku qabsadaa Soomaalidu wadad muslimina laakiin dhaqamada ugu xunxun ay leedahay waa kala dhaca hadeerta adduunka waxa ku soo badanaya kala dhaca adduunka oo dhan waa ka dambi weyn sidoo kalena waa ka mamnuuc in wax la kala dhaco dawladaha sharciga leh oo dhan meelay joogtaba iyo meelay ka jiraanba laakiin Mareykanka ayaa waxa lagu eedeynayay 2 casho ka hor in uu diyaarad u socotay dalka Faransiiska uu ka dhacay oo alaabaha la isku qafilo ama lagu gaashaanto siday haatana Faransiiska laftiisii ayaa ka rogo laba saar isla markaana alaabo loo diyaariyay in loo raro oo diyaarad lagu loo saaro dalalka Spain iyo Italia ayuu jidka u galay sida ay sheegayso shirkadda dhinaca caafimaadka ee dalka Switzerland laga leeyahay la yiraahdo Molinki waxay warqoray soo saartay ku tilmaantay inay ka xanuunsatay talaabada dawladda Faransiiska ay kula wareegtay alaabo shixnad ah oo ka koobneed alaabaha markaasi loogu talagalay in qalinka lagu galo arintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo dunida ay gabaabsi ku tahay arinta dawladda dalka Mareykanka ayaa shalay waxay amar ku bixisay madaxweynuhu amar ku bixiyay in company la yiraahdo 3M inuu soo saaro alaabaha lagu gaashaanto ama qalitaanka lagu galay loo yaqaan N95 oo ay sheegeen in ay muhiim u tahay jiritaanka dadka iyo badbaadinta muwaadiniinta Mareykanka taasoo dirbaba ay sheegayso hay'adda FEMA la yiraahdo ee ka hortagga aafooyinka dalka Mareykanku in ku dhawaad $1 bilyan oo lacag ay ku bixisay alaabtaas in la gaarsiiyo gobolka New York ku dhawaad
1 milyan iyo 800 oo alaabahaasna hada loo weeraray halkaas laakiin tan waxa ay la mid tahay baa leeyahay in alaab saas oo kala ahayd oo meel loogu talagalay la wareegay madaxa guud ee shirkadaasi la yiraahdo Molenki war qoraal oo soo saaray oo Richard Womi waxa uu yiri dhamaan waxay dawladda dalkaasi Faransiisku la wareegtay alaabtan u wadnay Itaaliya iyo Isbaaniya Faransiisku waxa ay sameeyeen waxa weeye in ay mamnuuceen in alaabtaasi waddanka laga saaro kadibna waxa meesha ku daatay ciidamo si gaar ah u tababaran oo la wareegay alaabaha gacanta la gashado kuwa afka lagu xidho ee qalitaanka lagu galo iyo kuwa wuxuu yiri sidoo kale la isku jeebo ee dadku uu ka dhigto taxadarka ee dhaqaatiirta qalitaanka sameynaya iyo kuwa la tacaalaya dadka markaasi xanuunsanaya ee markaasi nafbaxaya iyo kuwa neeftu haysaba waxaan wuxuu yiri waxaanu degdeg u diyaarinaynaa inaanu shixnad kale aanu dalkaasi u abaabulno ama labada dalba oo aanu marino haatan dalka Belgium oo u muuqdo mid kale aamini karayo wakaalada wararka ee Huffington Post ayaa waxa ay sheegtay in dalka Jarmalku uu asaguna saas oo kale sameeyay oo alaabo ku socday dalka Shiinaha uu la wareegay asaguna uu qabsaday ka hor intii asagana aan laga wareegin alaabo ka imaanayay dalka Kenya oo soo marayay dalka Kenya oo dawladda dalkaasi Kenya lagu eedeeyay inay xaday alaabtaasi oo iyadu aan xitaa dawlad ahaan kula wareegin baa la sheegay laakiin dad si burcadnimo oo kale ay u boobeen haatan dunida ayaa u muuqata in uu dagaal xataa ku dhaxmari karayo alaabaha iyo kala boobka arrimahan oo kale halkan nagala socotaan wararkii wacala dhinaca dunaasiyada dalka Saudi Arabia ayaa ugu dambeyntii Mareykanka wuxuu u muuqday uu ogoleysiiyay in ay fadhiisiyaan suuqa saliidda madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa noqday ruuxa ku dhawaaqay in markii saddexaad in arinta shidaalka go'aanka gaaristeeda masiireed ee dagaalka u dhaxeeya dalalka Russia iyo Saudi Arabia madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in maalinta Isniinta shir degdeg ah oo xaqadka maqal iyo muuqaalka ay ku wada yeelanayaan dalalka OPEC+ OPEC waa dalalka OPEC ku jiray iyo plus oo loola jeedo lagu daray dalka Russia dalal ka mid yahay waxay xasili doonaan shidaalka waxa uu sheegay in Sacuudiga iyo dawladda dalkaasi Russia labada uu ku qanciyay arinta wuxuu yiri awalba Russia waxay diyaar u ahayd qadiyadaas haatan Saudi Arabia sidoo kale ay diyaar u noqotay waxa dhanka kalena hadal uu soo saaray madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin wuxuu sheegay in uu amar ku siiyay wasiirkiisa tabarta arintaasi qaabilsan Alexander Novak inuu dedejiyo in la gaarsiiyo jaritaanka hoos u dhigista saliidda 10 milyan buuri oo foosto in la gooyo oo ay dalalka oo dhan ay isku raacaan in 10 milyan laga jaro guud ahaan weeye dalalka OPEC iyo Russia lagu daray waxaana uu sheegay in qiimaha foostada saliidda ah la bajbaari doono ama ku dhawaad la bajbaar lagu dari doono oo la gaarsiin doono ilaa $42 halkii foosto sida uu sheegayo waxaa la sheegay in khad telefoon oo dhexmaray Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud wiilka dhalinyarada ee leelanaya dalkaasi wiilka MBS caanka ku ah iyo dawladda iyo madaxweynaha dawladda Russia Mr Putin lagu heshiiyay in taas la gabagabeeyo maalinta Isniinta laguna dhawaaqo suuqyada saliidda ayaa la filayaa in maalinta Isniinta la gaaro inay sare u kacaan korna ay u qaadaan qiimahooda dhinaca saliid kicista kolka ay timaado heshiiska ayaa la sheegay dhanka kalena daawadaasha qiimaha leh golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa la sheegay in loo baahan yahay in shir degdeg ah isugu yimaadaan maqal iyo muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron in ay golaha ammaanka qaramada midoobay shanta dal ee joogtada iyo shanta kale xubnaha wareega leh inay isku yimaadaan iyadoo adduunku u muuqdo in arintan ay u muuqato in la baaweenayo waa xanuunka ka hortaga waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka in uu loo baahan yahay muhiimadda shirkan uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka waa dadka ka soo horjeeday in golaha ammaanka qaramada midoobay ay saameyn ku yeeshaan siyaasadda dhaqaale iyo dhaqan ee dalka Mareykanka laakiin haatan waxa muuqata in adduunkii ay dan isku khasabtay isla markaana la isku sanduloobay ayadoo haatan uu sheegayo in shirkaasi uu muhiim noqon doono kolka qaramada midoobay loo dhiibo hoggaan ah ayaa leeyahay inay la dagaalanto xanuunka isla markaana sutida loo qabto ayadoo haatan xanuunka loo aqoonsaday markaasi in uu yahay mid caalami ah waa markaasi waa faafic caalami ah xataa safmar lama oran karo safka 10 qof buu ka bilowdaa 10 qof waa hal saf markaas safmar lama oran karo waxa loo oran karaa faafe balaaran markaasi ama dadmar xanuunka dadmar ka noqday markaasi dadka oo dhan maraya dunida oo dhan maraya ayaa la sheegay in markaasi laga tasha doono oo sida ugu dhaqsaha badan looga saari doono go'aamo waaweyn ayadoo sidoo kalena ay jirto ciladii dhinaca siyaasadeed dalalka Russia iyo u dhaxaysay dalkaasi Turkiga ayaa mar kale Mareykanku waxa uu muujiyay inuusan ka hadhin dhinaca tartanka dhinaca gaashaandhigga ee uu kula jiro dalkaasi Russia iyo talaabooyinka uu ka damacsan yahay dalka Turkiga kolka ay timaado haatana Mareykanku waxa uu soo saaray qaraar kale wuxuuna sheegay in ay diyaar u yihiin inay shixnad taageero ah oo isugu jira gantaalo diyaarado iyo rag waliba la taliyaan militariya oo Mareykan loo dirayo Turkiga marka ay noqoto dagaalka ka soconaya gobolka Idlib hadii ay joojiso ama ay gacanta ku dhufato heshiiskii S400 gantaalaha loo jiray
sidaas waxaa sheegay gabadha gaashaanbuurta NATO u fadhida Mareykanka oo ah safiirka ambassadorka aan raahdo la yiraahdo ambassadorada la yiraahdo Kay Paley Hudson. Mr. Hudson waxay tiri waxaan rabnaa inaan halkan gaashaanbuurta NATO ahaan u wada hadalno. Waxaanu hadda diyaarinay ayay tiri shixnad military oo nooc walba ka kooban oo aanu gaarsiin doono waxay tiri taxalufkeena ama xulufadeena Turkiga. Waxaan rajaynayaa in Turkiguna ay aqbalaan in aysan rakabin oo aysan qalabaynin oo aysan soo iibsan qalabka waxay tiri aan lama hadin ee gaashaanbuurta NATO qalabkeeda ka dhanka ah ay uusan fahmi karin Russia soobiso. laakiin dawladda dalkaasi Turkiga ayaa dhowr jeer diiday dalabka noocaas oo kale hase yeeshee waxa ay sheegtay dawladda dalka Turkiga inay ogashahay in qalabka aan la isku xidhxidhin oo aan markaasi la foorarin oo aan lagu jeedin markaasi qalab difaac oo kale laga dhigin laakiin ay haysato oo ay bakhaarada gashato si ku meel gaar ayadoo markaasi hadii markaasi qalabka kale ee gaashaandhigga ee dhinaca difaaca ee Patriot kale yiraahdo Mareykanka Soobiyo la soo waarido gabadha oo faasiil bixinaysa isla markaana shir dhinaca maqal iyo muuqaalka gaashaanbuurta NATO ay lahaayeen ayaa sheegtay in ay doonayso in gaashaanbuurta NATO ay taala fahanto warkana la qaraabeeyo isla markaana waxay tiri si weyn loola fahansiyo dawladda dalkaasi oo lala tacaalo marka ay noqoto ama lagu cadaadiyo ayay tiri kolka ay noqoto arintaasi email mariteed daawasheen qiimaha leh intaasaan ku joojinaya daawadayaasha qiimaha leh faafinta wararka waxa xaqiina daawadayaasha qiimaha leh sidoo kale wararka dhinaca falanqeynta daawadayaasha qiimaha leh in isla fahanno inaan waxaanu ka hadlanaa ay tahay wacyigelin iyo waliba xisaabtan marka ay noqoto daawadayaal tan iyo intaynu saarki doonno waxaan leenahay amaan Allah.